وارون walaalkay wani ku sii sheegay waxyaabaha shirka laba gal wani ku sheegay ku yiri hadda imaka customkii way ka socotaa oo maamulkii silaaxta ciidamadii baa galay waxayna socon duubaash halka kuma joogsanaysay ciidamadan sida u socdaan wax isku dhiibi doonaan imaka bootaynaya wax isku dhiibi doonaan dawladda Djibouti baan ku yiri hadalka halka ku xiro aw customka waa qabanayna sida u dhantahay lacag dambe iyo wax dambe aaboodo maraysa ma jirto barisaabkana oo iska socon aqalkii hooyadii u tagay burcu uu shaqo tagi doonaa waxa kale oo kudu darayo wax weeyaan dukan khayraad kale oo dhan anaga degan Soomaaliya taruudu sheegayba dukan khayraadka waxa deganaa waa artida iyo bishan ciise weyn waxa weeyaan marka bad iyo dibadba cunno qabatay ma ku waxaynayna adigu waxa la hadlayaa dagaal sukeeyo dadkan aqligu ma soo noqday ilaa cunno qabatay la duuxeeyo loo yaada way xirmi doontaa ana kule hadalkayga meedigo way xirmaysaa wax u soo gali jiro boorka xitaa imaka ma shaqeeyo uu xiran yahay marka waxa weyn Ethiopia ma ka xiraynaa Soomaali weyna waxaan hubnaa artiinay waxba siinay baan hubnaa balninkay gaajo dishaan eegaynaa cunno qabateen dhaqaalaha ku qabanaynaa beeshan marka ay saaxiga keeni doonto aqligu soo noqon وهاجك أدو مدحونا مامول كجوبل ستيت باتاي ومامل طبعا دولة فدرالك هوستجا أو سوكر بي دولتنا وحيدة لو جرتي سيدا يقول تيجي هاي خطرها وقوي ما ليا جميسجي أو طبعا خطرت وين الصومالي صوفات صارتي حتى وحصل هذا القاضي إن بدنا طبعا باش عيسى دقنت هاي ويقعد من السعودية لو بعضه دور كدولة فدرالك هاي حقوق الدنبي مسيدي كلا صو هذا الشيء ده سؤال كدقو دبعتضني وحوين دولة الفدرال صدح جربا باقو درني صدحدي جربا حرتو على القدمو يمقوشين نسكي باقو جيتالي رقا فدرال كايا ندلي halka jooga ninka u tunweyn yahay maxamed xaga ninka la yiraahdo ninka maxamed xaga dhowr jeer baan la hadlay heebtan beeshan isaaq baa dhashay ma garanaysaa oo isaga iyo xitaa wasiirkan kale ee marka ciyaaraha isaga keenay meesha ilaaqaad fiican baa ka dhaxeeya maamul goboleedka Somaliland waan ogyahay taaka la socda arrimihiisa dhowr jeer oo kala hadlay danta beesha ciisana dad jalaqna u muudin waayo waxba aan idin jilwey waxa waaqay xildhibaanada dadka wala joogo dhan damiirkooda arkaysa waxa weeyaan war hadda xilkan de uma sidin dad kale beesha ciisa u sidin waxa ka hadlaysa dadka xildhibaanada federaalka beesha ciisa matala ayaa dabcan ka hadlaysa ma iyaga u afduuban miya Somaliland iyaka weeyaan iyaka u afduuban iyaka laftigooda ninka u tuweyn ma arkaysa maxamed xagaan la iraa weeyaan waxa ku socoto iyo qaar kale badanba weeyaan walaalkay waxa weeyaan hadayna iyaku ay raali ka hayn waxan ma dhaxdeen beesha Samaroon iyo beesha Isaaq gardara iyo baadilba way isku raacsiin xildhibaanadooda way hadlaan weligood ma qoratay hadleen markaana waxay ahayd dadan beesha Isoomaaliya dan kala daaray u hadleen dadka gaarka ay u hadleen umadu indhoogu arkaysa war soo baxa dadkiini baa la leenayaa dadka aad xilka u sidin وهلا هذا هو اللي الحلقة إسكندرية دولة الفدرال كنا بقول جرب بقول شغلي وعلينا وعلىكم ماتا ما ممكن بلنقات كات قاعدين إذا كي صادر اعتراضين واحد بس مجرد ما نعينه وما هذا واحد قاعد تيجي في جيران وحوين تذكر هذا اللي يحبون وراحبنا وما أنا كي مركز صومالين أنا كمركز بسكسو بحنا بسكو نمالنا بيشيس لقلنا وحوين سرن كمان نولانيان بيش عيسى كمان نولانيان هذا xildhibaanada federaalka aad saartay dabcan dawladda hoos tagaan dawladdu iyada ku dooday waxaan difaaciyaa midnimada maanta dadkan oo aameel ugu muhiimsan Soomaaliya ama barta ugu muhiimsan cid kasta indhaha ku hayso haddii dawladda federaalka Soomaaliya baqiyadaada ay ka jawaab weydo dabcan iyadan midnimada raali ka ahayn Soomaha ma markii ugu horeysay isla mowduuc san oo kala dawladda kala hadlaysay dabcan aniga inta ilamadka baynu macna sameynay dareemayaan oo dawladda federaalka ay gato hawsheed waxa weeyaan walaalkay waxa weeyaan anaku beesha ciisaadana waa xiroobina kala xiroobnaba amba dawladda Soomaaliya oo nala socoto amba iyagoo nala socon waa xiroobina xisaabna dib baa la isku xisaabin doonaa intii ragna la dhimatay waxa weeyaan dawladda Soomaaliya 100 jeer baa loo diray ballanqaad xitaa way bixisay ballanqaadkeedii ay bixisay ummadoo dhan way wala ogaayeen waxa weeyaan waxay ballanqaadkay bixiyeen
fulin waa wixii ka socon lahayd waa raggan meesha ku matelaya ayaa ilaan wixii haddaan la daba joogin lahayn mudan madaxweyne arrintii halkee socotaa mudan ra'iisul wasaare ma arkaysa arrimihii halkee socdaan loora waaye inuu markaa aadu ka seexatid dadka iyagu maxaa ka galay raggan kale dabcan laascaanood haddaad tusaale usoo qaadano ama waqooyi bari dowladda federaalka way laba wajiilaynaysa ilaa markii dadkan ay dagaalamayeen keliya markii dadku isxoreeyeen ayay ku khasbanaatay marka soo hadda mas-uuliyaddiina ma aha in aad isxoraysaan oo deegaankiina aad maamul u samaysataan marka dowladda federaalka iyada idin imaanayso soma waxa weeyaan walaalkayow dowladda Soomaaliya ee federaalka waxba anagu kama leexleexanayno waxa weeyaan haddana imaka waxa weeyaan waxay bixisay mar dhaweyd lacag ay anaga nala tashan oo qaybta halkaa jooga hadday ragga ay leeyihiin anagu waan ogeyn anagu waxaan ka ogeyn ma jirto iyaga markaan waraystana lama tashan ayay ku matalaan federaalka lacagta waa la soo qaaday waa dikadan ka baxaysa loobi cadda ee ilaa ku dhamaanaysa meeshan boorama agteeda marka ayaa loo tashaday shirkado kale waxa la kala siiyay labada qaybood halka ka soo jeeda war awdkan ay marayso waa dhulka Ciisa maxay ragga u daali waayeen maxaa hadii wax la bixinay in kaskaba deegaankiisa dadka deegaanka ayaa ka soo jeedo la siiyaa qandaraashada marka aw ragga waxaan arkay waxa dan gaara inay ka wataanba ma arkaysaa oo Ciisa waxba ka gelin oo dantooda un eeganayaan ma laga yaabaa maadaama raggan xilalkooda ay ilaashadaan inay naawilayaan maamulka Somaliland baa idii soo magacaabaya maadaama si hoosana dabcan tuunku u jiro in Somaliland ragga xildhibaanada noqda ay la shaqeyso iyadoo ay geyso waxaan ku sheegayo walaalkayo waxa weeyaan markii hore siyaasad waxa ku jirtay halkan kale dowladda Djibouti maanta laakiin way ka madax banaatay dowladda Djibouti wax ay siyaasadaha ay ku jirto absolutely ma jirto waxbana marka waxa weeyaan walaalkayo raggan ninka aad baan wax u dahayaa waxa weeyaan ninkan abjaaladii buu la shaqaystaa ninkan wasiirka ciyaaraha keenana waa isaga hadalkan ku leeyahay waa biyo kama dhexmaan weeyaan marka maxamed xagaayo waxa leeyahay haddaad abjaalada naas nuugijinaysa aday ku talay xirka Ciisa le u soo dhig weynayn Ciisa oo hadal oo waajibkaaga ka soo bax adiga ka adaa ragga meesha u tuweyn meesha jooga ma arkaysaa gabadha Zainab waa gabar fiican way u hadashaa adiga nin meesha gabar ka hadlayso adigu maxaad u hadlaale maxaa la aamusan tahay soo baxo hadal oo hadal dadkaaga sida loo leenayo haddii kala de Soomaaliland aad magaranaysa ilaaqaadka hoose u nida dhexeeyana warta ummadu arki Ciise weyn u arki ama hore baan ku arkay waaye fariintaada ugu dambaysa madaxweyne maxaad u diraysaa shacabka beesha Ciise ee hadda lagu dul dagaalamayay muddo sanad aan ka yarayn oo runtii dhibaato badan la kulmay waxaan ku soo xidhay walaalkay maxamedow fariinteeda u dambayseen baaqa u dirayo waxa weyn waa laba midna waa ogaaska beesha Ciise aan ku dambeeyay waxaan ku horeynayaa beesha Ciise ee halka imaka dhibaatada soo gaadhay halka degan walaalahayow intii dhimatayna Ilaahay u naxariistaan leeyahay inta dhaawacana Allah noo bogsiyaan leeyahay kale labaad Ciisow horta khalad waxaan galnay maalintii la yiri dhulkiina waxba kuma dhigin kartiin khaladkaan galnay waa taa maanta sidee aad dareensantiin maanta marka aan la yiri Ciise la tirtiro la isku raacay ilaa askari ilaa madaxweyne la isku raacay waxa weeyaan marka taada inka ka soo jawaabi doona tolkayow marka waxa weeyaan war meeshan waxba nooma yaalo fadhi nooma yaalo waa inaad baashu ma garanaysaa sida aad noo kaba awda soo jawaabteen aad kuleyl ba geeslaad kuleyl kala gooya haddii toolana wax maamul goboleed la iraaho dambe ma maqli karno ninka waxa weeyaan ninka Ciise ku maqalno jamhuuriyadda Soomaaliland ninka waxa weeyaan kulli waa xiroobi doonaa muddo dhow waa ka bixi doonaa sida hubal Ilaahay baa talada iska watay ma garanaysaa Ilaahay waan ka farabaxaynaa wayna dhowdahay waqtigan ka farabaxaynay waxaan leeyahay ninka lagu maqlo maxkamad baa la tiisan doonaa ragga dowladda ku jirana ma arkaysaa way noo tirsayn wixii aan wixii dabadhilif iyo wixii kale ma garanaysaaba way u tirsayn beesha Ciise waxaan leeyahay sida u midaysantiin mid oo hada nilma guulaysan weligeedna Ciise lama guulaysan maanta oo weliba gardaro tahay oo dhubkiini ay tahay dhulna Ciise taariikhda inta la galado markaadan waan soo salaamayaa qaybtii kale labaad ogaaska ayaa soo galaya haddii Ilaahay raaco ogaaska waxaan leeyahay ogaas waan ku salaamay
سلامته وقاليسنا دين المسلم كان قوسه سلام يا أديك يجندها يوريون كاجا يصلادين ترى بيت عيسى سلامته كدب وحنا كلية رجل مركز هذا الشيء بوس كحارن حرب كذا معه وباخ كلام لما هذا شو درتين عيسى الصومال لنا يضم به مجريش والله إني جري ما كل شيء هذا الكاغو قراطة وقاس مصطفى حكم مرة لا يرعويس كو قاعدين يجيب جوجو دم ماركي مركا باخ كلام لما وإن هذا شو درتي oo ma garanaysaa baaqaaga ayaa ku noqda ma garanaysaa buur ku soo duntay reerkan